إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نعموينك وين uu allah tabaaraka wa tacaala addoommadiisa u galay aad bay u guda ballaaran yihiin haddii uu addoonka isku dayo inuu xisaabiyo nicmadu ilaahay subxaanahu wa tacaala u galayne ma uu ahaa mid soo koobi kara iska daa nicmooyinku ilaahay subxaanahu wa tacaala kuu galay inaad koobtee jirkaaga inta keliya ee nicmo ahi ma xisaabin kartid waa jismigaaga oo keliya iyadaa kuugu filan ku cibro qaadasho iyadaana kuugu filan inaad waxa weeyaan kuwaana qaadato allah subxaanahu wa tacaala wuxuu dhahay wafii anfusikum afalaa tubsiruun war naftooda waxa dhex ahaada oo keliya may eega haddaad runtii eegto jismigaaga inta nicmo ilaahay subxaanahu wa tacaala yeelay ma koobi karaysid mana soo ururin karaysid tusaale yar walamhilatu tattadixu lmaqaal tusaalehay wax ku caddaadaane carabka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey carabkaas ashyaada uu kuu qabtaayi ma soo koobi kartid shay baad carabka saaraysaa waxaad odhanaysaa waa hilibkaa yare waa shay macaan baad leedahay waxaad ku garatay waa carabkii isla carabkii aad ku garatay inuu shaygan macaan yahay isla carabkaasaa haddana ku garanaysaa inuu qaraar yahay isla carabkaasaanad ku garanaysaa inuu dhanaan yahay wa fii anfusikum afalaa tubsiruun nicmooyinka ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa uu galay kuwa ugu guda ballaaran ee ugu waaweyn waxaa ka mid a islaamnimada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kugu manaystay sidaas daraaddeed risaalada aynu maanta bilaabi doonno waa shay ku tacalluqda noloshaada qayb ka mid ah waa shay ku tacalluqda noloshaada qayb ka mid ah waxaan hubaayoo xaqiiqo ah ardayda joogto ila joogto iyo kuwa iga maqanba haddii aad noloshaada ku beesgaraysood ku dhisto aadaabta kutubkan ku qoran shaki waxaan ku jiro inaad gaaraysid adduunyo ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo aakhiraba raalli noqoshadiisa inaad gaaraysid waa maalinta ku soo marayso sidaad uga faa'iidaysanaysid kutubka magaciisa sida idiin muuqato waa kayfa tastafiidu min yawmik sidee baad uga faa'iidaysanaysaa maalintaada qof walba maalin baa soo marto waxaynu wada ogsoonnahay inay maalinna soo marto meel kastoon adduunyadan uga noolnahay maalintaas annaga waxay noo tahay marti maalintaas waxay noo tahay marti haddii ay maalintaa tagto kugu soo laaban mayso maalintaa haddii ay tagto lagama yaaba inay dib dambe u soo laabato waa say u tagtay cafa allaahu cama salaf yacni wixii tagaa tiigsimaad ma lehe dhahan soomaalidu risaalada sheekha kutubka wuxuu u bixiyey kayfa tastafiidu min yawmik sidee baad maalintaada uga faa'iidaysanaysaa
وأرن كتعلق ذا وقتي جاجا وأرن كتعلق ذا نلاش هذا وأرن كتعلق ذا كحريرتا هرمر كاجا يصير آد ميزانية كويا لنهيت قفك الصقو حقيقة الرميه سجار كأسامي صنيو أيو ولا له سن وقت لقادن كرا قفك الصقو نفتي سكبعينيو أو وحبرانيو أيو هدنا دتك ولا له سأهي أصحاب تيسيه الكيس أو وقت لقادن كرا قفك الصقو نلشي سي عبادتي سكر حجرو إلهي سبحانه وتعالى عابديو أيا هدنا حقوق أي دتك ليهين أو إلى لنكرا مركا إن وقتigaagiyo idil uu ku baxo hal shay oo aadan garanaynin waa nasiib xumo waxbarashadaada inay ka mashquuliso asxaabne waa ayaan daro cibaadada ilaahi subhanahu wa ta'ala aad caabudi lahaydna inay ka mashquuliso aalado iyo asxaab oo aad waqti la qaadataane waa nasiib xumo aqalka wuxuu ku tashtaa qofka aqliga leh wuxuu ku tashtaa sidoo waqtigiisa u nadaamin laha idan nadhim waqtak وأنا عوانك كوات أو أين كتبك كوارك دون بإذن الله تبارك وتعالى وقتي قيمها أوليه والشيء أين وذكرنين كمقدمة أهان مجعلين وقت بدن وإنه غلمه هصي شيء وحن كل جين وذا أكسون هاي إن وقتك أوليه فوائد فرب بدن لون باهية إلا كفائدست لكن بيبقى نهاي استوحيت هاي كنا نعلم ولا نعمل dad wax garanayaan nahnay oo waxaan garanaynaa oo ognahay waqtiga faa'iidada uu leeyahay hase yeeshee kama faa'iideysanino waxaan garanaynaa oo ognahay ilaahi subhanahu wa ta'ala cibaadadiisa iyo taacadiisa faa'iidada ay leedahay hase yeeshee ma caabudno mana ka faa'iideysano waxaan garanaynaa waalidnimada waalidkoo loo baarinimo sameeyo faa'iidada ay leedahay iyo heerka lagu gaaro laakiin ma u baarinimo sameeyno sidii dhabta ahay oo nagala rabay waxaan garanaynaa akhrinta quraanka ajarka iyo fawaa'ida laga wada helayo haddana ma ka faa'iideysanino waqtigeena gelin mayno akhrinta ilaahi tabaaraka wa ta'ala kalaamkiis kunna na'lamu wala na'mal wa afana wada haysato in badanna aan run ahaantii horay u tilmaamnay risaalada marka waxay ku saabsan tahay shakhsi ahaantaada shay loo baahan yahay inaad ilaalsato haddaad ilaalsatana waxaan hubaa inaysan waxba ka halaabeynin dhinac walbaba inaysan waxba ka halaabeynin ayaan hubaa saadok soon tahay waxa ku soo marayo waqti horana waa ku soo martay haddana wuu ku taagan yahay oo waqti weey waxa hadda ku socdo hadduu ilaahay naf kugu gaarsiiyani caawa iyo biritana waqti waa ku soo maraya sidee loo markaa ugu fudud oo waqtigaaga aad uga faa'iideysanaysaa risaalada waxay ka hadlaysaa waa intaan marka sharaxeeda u guda galin yaan waxaan jeclahay fawaa'ida ku dhax sugan inaan soo khulaaseeyo kutubka billaah ila dhamaad inaan faa'iidada ku sugan aan ugu horeyn soo khulaaseeyo ka gadaale aan kutubka sharaxiisa u guda galno adif ila dalik intaas waxaynu ku sii daraynaa maalintaada sideed uga faa'iideysanaysaa والله ثم والله مال انتاد سيدات وقفا إذي سنيسد وانا لبري وحان نبري خير خلق الله محمدا صلى الله عليه وسلم نبينا نبري عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نبينا صلوات ربي والسلام عليه وحاكو قسوغا كودبا ديس شور أكسن لكن يأي قسوغا تاي مقرانيسا يا كتب الضيذ النبي إنما مقرانيسا صلوات رب والسلام عليه ولمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقفك إلهي سبحانه وتعالى كبقى يورجك له وقفك الله استاجي سكعب صنيو قفك بين نبي الله محمد صلوات رب والسلام عليه وقسقناتي كتب الضيس شون أكسن وقفك مال انت يوم الآخرة كحساب طميو وقفك أوك إما لن أي جرتو كان الدنبيسو لغانا حسابين دون الدنيا دان وحا أكسو عمل فليي أي أكسو سميني هذا بس إذا وقتك أقول فائدته وإن النقطة قابك النبي إنكو بري عليه الصلاة والسلام نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام قابك وحاويان مال انتيس أقول فائدة سنجري إنه فلان كتبك وحو كهد لينا واون انتا
markuu hurdada subaxii nabiga ka soo kaco calayhi salaatu wasalaam ilaa habeenkii markuu seexanayo inta shay uu samayn jiray waxa uu kutubka ka hadlayo waa un intaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala maadaama marka maanta ka muqadime ahaan ay naga tahay oo muqadime ahaan ay naga tahay in sha allahu tabaaraka wa tacaala waa un khulaasayn doonaa fawaa'idda kutubka ku dhex sugan si ay inoogu sugnaato cibra ka gadaalan sharaxa u gudageli doonaa hadduu allah awoodda la ka raali noqdo waqtiga saa uma badno waqtigaan ugu talagalnay waa 35 daqiiqo xataa laa yashcura axada mina almalal ilaa uusan waxaa weeyaan dareemin mid annaga inaga mid ah in meesha culays uu ku dareemin malal intuusan ku dhicin waa 35 daqiiqa biidn illahi tabaaraka wa tacaala intaanu ugu talagalnay ugu horeyn maxaa la gudboon qofka muslimka ahi markuu hurdadiisa ka soo kaco inuu sameeyo waa qaybta koowaad oo aynu kutubka ku arki doono hurdada markaad ka soo kacdo maxaa la gudboon qofka inuu sameeyo taas waa faa'iidada koowaad oo kutubka ka baran doono intaanan tan labaad u gelin hurdada marka waxay ka taagan tahay caqabad oo waqtigee la hurdaa dadka qaarkood iyagoo yaqaano kulligan haddiina la weydiiyo waqtigee la hurdaa haddiina la dhaho jawaab waan u haynaa waynu naqaanaa waqtigan hurdno kulligan waan ka wada jawaabina in habeen la hurdaan ognahay maalinna la soo jeedo soo saas ma ayib idan hurdadaadii hadday cagsi tahay dheef baa ku dhaaftay ha islugoyn waqti ha iska lumin hurdada shareecada islaamka waqti baa loogu talagalay allah muxuu dhahay wajacalna alleyla libaasa wajacalna annahaara macaasha habeenka waa waqti xasiloon ee uu qofka hurdo hurdada habeenkana laa shaka inay caafimaad ku suganta maalintiia soo hartay waa macaash waa arsaaqad raadin waa shaqo weeye in la shaqaysto allah tabaaraka wa tacaala ateecistiisii iyo wixii quud kuu ahaa inaad maalintii dhacsato qodobka koowaad ama ciwaanka koowaad wuxuu ka hadlaya waxay tahay maada tafcalu cindamaa tastayqidu min annawm sida kutubka idinku qoran hurdada markaad ka soo kacdo maxaad faliyood samayn ya idan marka waa inaad garato horta waqtiga aa la raba inaad hurdo teemkaaga yuusan kaa noqon mid isku dhex jura oo isdhexyaal ah yuusan kaa noqon ciwaankaasaan marka ugu tagi doonaa markuu qofku hurdada ka soo kaco waxaa la raba inuu sameeyo labo waxaan ciwaanka labaadan kutubka ku arki doonno waxay tahay insha allahu tabaaraka wa tacaala ciwaankaas hore 4 arrimood baa hoos imaanayso waynu arki doonaa uu idin kala qodobeeyey waanad arki doontaan kutubku idinku qoran yahay ciwaanka labaad waxay tahay kayfa taqdi yawmaka athnaa'a camalik haddaad tahay qof hurdada markuu ka soo kaco salaada subax tukada shaqo aado ilan dadka waxay u qaybsamaan 3 qaybood kuwo hurdada markay ka soo kacaan shaqo aado markii waajibka iyo gutaanka gadaale shaqo aado iyo kuwo hurdada markay ka soo kacaan waxbarasho aado iyo kuwo waxbarashana aanan aadin shaqana aanan aadin oo guriga iska joog ah saddexdooduba sheekha wuu inoo tilmaami doonaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala qaybta marka uu ciwaan uga dhigay waxay tahay kayfa taqdii yawmaka athnaa'a camalik maalintaada sideed ku gudanaysaa inta aad shaqada ku jirto yani waad shaqaysanaysaa laa shak shaqaad ku jirtaa inta aad shaqaysanayso maalintaada sidee la rabaa inaad ku gudato yani shaqadaadiya waxaa lagu sameynayaa qaab ilaahi subxaanahu wa tacaala uu raalli kaaga yahay adigoo shaqadaada ku jiro rabbanaa aatinaa fi ddunyaa xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar adigoo shaqaysanayo shaqo ku jiro waxaa weeyaan xooggaaga maalayo diidi mayso inaad ilaahay ateecdo
laakiin shaytaan muxuu ku dadaalayaa waad mashquulsantahoo shaqaad ku jirtaaye howl kale ma qaban kartide bal sidaa un samey un isma diidayso waynu ku arki doonnaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala kutubka ciwaanka saddexaad waxay tahay maada tafcalu bacda alintihaa'i min alcamal shaqada markaad soo dhammaysato ama waxbarashadaada markaad soo dhammaysato oo wixii aad maalintii qabanaysa markay kaa dhammaadaan maxaa la rabaa inaad samaysid arrimo dhowr aha iyadana hoos imaan doonto saan arki doonna biidn illahi tabaaraka wa tacaala dhowr arrimood ah waana ciwaanka u dambeeyo kutubka kusoo gebagabayn doona sheekha ma tahay qof wax akhristo horta wax ma akhrisaa aadaab iyo dhaqan ma kuu tahay inaad kutub soo qaado oo aad wax akhriso qur'aan ahaaya axaadiis ahaata culummada kutubteen noo qoreen ahaata ma tahay horta qof wax akhriya haddaad tahay qof badbaadayaad labo ma tahay qof ehelkiisa waqti la qaata waalidkiisana waqti la qaato ciwaanadaasaa hoos imaan doonto markuu qofka shaqada ka soo baxo saan arki doonno biidn illahi tabaaraka wa tacaala ugu horreyn aan marka usoo laabanno wuxuu ku beesgaraysan yahay saan tilmaamnay uuna ku dhisan yahay maalintaadu waxaa la raba inaad ku qaadato arrimo dhowr ah waxa uu ku dhisan yahay waa akhlaaqiyaadkii nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh horta kow waqtiguu hurdada nabiga ka kici jiray calayhi salaatu wasalaam waqtiguusa seexan jiray taa markaan isla fahamno naftaada walaal ku dadaal inaad ku dabaqdo way dhici kartaa in habeenadan qaarkood ay wax kaa simbir raxdaan bini aadam baata nabiga calayhi salaatu wasalaam salaada cishaha markii laga baxo gurigiisuu tegi jiray salaada cishaha markii laga baxo gurigiisuu tegi jiray xaasaskiisa habeenka uu meesha guriga ku qoran yahay guriga habeenka uu ku qoran yahay gurigaas guriguu doonaya ha ahaadee ayay xaasaskiisa oo idil iskugu imaan jireen waana lagu wada cashayn jiray cashada nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi habeenkaas guriga uu ku qoran yahay ayay xaasaskiisa inta kale imaan jireen gurigaasaana lagu cashayn jiro o lagu cuntayn jiray hadalka waa hadal cadwi labo wuxuu nacbaan nabiga calayhi salaatu wasalaam alxadiida bacda alcishaa in la wargalo ama la sheekaysto cishaha ka gadaale waqti horuu nabiga seexan jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo horuu u seexan jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam seexashadaas uu horay nabiga u seexanayo ama qofka muslimkaba hore u seexadka uu horay u seexanayo arrimo dhowra bay ka saacidaysaa hurdo kugu filan horta waad qaadanaysaa labo caafimaadna waa ku suganta saddex ilaahay cibaadadiisa iyo qiyaamu leylka awood baad u yeelanaysaa inaad usoo qumto hadda qof dhaframaba ka soo bixi karaba nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu kici jiray habeenka saddex qaybood markii loo qaybiyo qaybta dambe yuu nabiga kici jiray calayhi salaatu wasalaam ilaa aadaanka laga gaarana wuxuu waqtigaas ku camiri jiray cibaado ama qiraa'atu lqur'aan ama qiyaamu lleyl ayuu nabiga ku camiri jiray waqtiga iyadaa waa habeenkii markii saddex meelood loo qaybiyo qaybta dambe waana qaybta ilaahi subxaanahu wa tacaala ducada u ajiibo waana qaybta uu allah subxaanahu wa tacaala samaa dunya usoo dego sida nabiga uu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam yanzilu rabbuna fi kulli laylatin ila samaai dunya xadiidka muslim saxiixiisa uu ku waranayo min xadiidi abaa hurayra radia allahu canhu wa ardaa soo degista ilaahi subxaanahu wa tacaala uu soo degayo waa xaqiiqo weey majaaz ma ah
soo degis dhab ah ayuu samaau dunya allah u soo degayaa qaabka iyo nooca uu soo degayana aqoon uma lihin imiruuha kama jaat waa soo degis u cuntanto ilaahi subxaanahu wa tacaala waqtiga habeenka markii 3 qaybood loo qaybiyo qaybta dambuu soo degaayuu nabiga noo sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh fi thuluth al-layl al-awaakhir habeenka 3 meelood meesha ugu dambayso ayuu rabbi tabaaraka wa tacaala soo degaa idan marka wuxuu nabiga soo kici jira waqtiga asagoo uga faa'iideysanayo in Allah subhanahu wa ta'ala uu ku ateeco una baryo dantiisa iyo xawaa'ijtiisa u sheegto una ilaahi subhanahu wa ta'ala u tukado oo qiyaamul leelka uu la imaado waqtigaas barakeysanni Allah subhanahu wa ta'ala du'a walbo laga baryaayi waa laga helaa waana waqtiga la rabo qofka muslimka inuu aad uga faa'iideysto maanta sadalan yarti iyo waqtiga maanta aan joogniyo waaqici markii laga tagay ilaahi subhanahu wa ta'ala diintiisii ku dhaqankeedii iyo barashadeediiba markii laga tagay oo jahligii naga qaalib noqday waqtiga fadiilada oo fadliga badanan maanta waxaan kullu minna shay ilaahi subhanahu wa ta'ala aragelin hada ma la yaani qoris iyo waa la yiri iyo way dhacday iyo jaatin iyo waqti aan loo joogin laakiin qofka garaad kale oo aqliga lahi waa uu garan karaa faa'iidada waqtigaasi uu leeyahay hurdada waqtigaas uu nabiga ka soo kici jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh muhurdu kullaaban jiray salaada subax markii la gaaro nabiga calayhi salaatu wasalaam naam ha qiyaamul leelka markuu dhameeyo nabiga calayhi salaatu wasalaam oo la aadaamo salaadii subax aadaanka markuu dhaco dhinaciisa midig buu nabiga u seexan jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh wasoo qiyaamul leelkiisii dhameystay hadii aadaankii salaada subax markuu dhaco nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi dhinaciisa midig bi u dangiigsan jiray xadiidka ibnu cabbaas baa tusinaya waana saxiix xoogaa inta aqinka uu ka soo dhawaanayuu nabiga hurdi jiray calayhi salaatu wasalaam waxaana hurdada ka kicin jiray bilaal ibnu rawax waa markii salaada subax la gaaro bilaal markuu ka kiciyo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu samayn jiray labadii rakcadood oo adduunyadan iyo waxa ku dhex sugnaaday ka khayr badnayd ayuu nabiga tukan jiray calayhi salaatu wasalaam labadaas rakcado nabiga wuxuu ku tilmaamay rakcata al-fajr khayrun min ad-dunya wama fiha labada rakcadood ee ka horeysa salaada subax inay ka khayr badan tahay adduunyadan iyo waxa dhex ahaadayba adduunyadan iyo wixii dhex ahaadayba in ay ka khayr badanta sidaas uu nabiga ku sheegay calayhi salaatu wasalaam idan rakcadahaas uu nabiga tukan jiro labada rakcadood ah muxuu ku akhrin jiray adigu samatahay qof tukada labada rakcadood ee salaada subax ka horeyso waqtiga la tukada waa aadaanka iyo aqinka inta u dhaxaysa wi wama bayna al-aadaan wal iqama aadaanka iyo aqinka inta u dhaxaysa wi haddaba adigu ma tahay qof tukada marka mise waqtigaas aad hurdo isku diyaarisaa haddaad waqtigaas hurdo isku diyaariso ama waqtigaas ka hor aad jiifatay ogsoonow cidda kugu kaadisay kaana faa'iideysatay kuna dullaysatay wax qurunoo dhintayna kaa dhigtay waa shaytaan isdibqabo haddaad waqtigaas qawi tahood soo jeedood ilaahay xusayso oo labada rakcadood aad tukanaysani waxaad tahay xisbullah ilaahay subxaanahu wa tacaala qofuu khayr la doonay baa tahay idan marka faasilka faham ogsoonow meesha iyo danta adiga lagu abuurtay haddaad waqtigaas jaatin ku jirto ood wax iska qorqorayso qof la sheekeysanayso oo mala yacniga aad ku jirtani ogsoonow inaad ciidamada ibliis mid kamida aad tahay isdibqabo aadaankii aqinka inta u dhaxayso labada rakcadood nabiga tukan jiray calayhi salaatu wasalaam labada rakcadood markuu tukado salaada subax buu nabiga tukan jiray calayhi salaatu wasalaam salaada subax waxay kamid tahay salaadaha uu nabiga aad u dheereyn jiray intaan marka salaada subax u guda galin labada rakcadood ee salaada subax ka horeyso muxuu ku akhrin jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam aayado dhowr ah iyo arrimo dhowr ah ayuu nabiga ku akhrin jiray calayhi salaatu wasalaam rakcada koowaad wuxuu ku akhriyay oo nabiga ka sugan qulu aamanna billahi wama unzila ilayna aayada ku jirto fi suurati al-baqara
ركعة اللبادنا وحوكو أخريي قل آمنا بالله وما أنزل علينا وسورة آل عمران تاسوا سقناتي وحكى النبي يكو آخرين جري صلوات رب والسلام عليه فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله آيات سورة آل عمران كجرته ركعة كوادكو آخرين جري ركعة اللبادنا وحوكو آخرين جري قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أو إسلا آيات كجرته سورة آل عمران إذن مركا labadaas qaabood buu soo aroortay waxa kale oo soo aroorto nabiga uu ku akhrin jiray labada ragcadood ee salaada subax ka horeyso ragcada koowaad suuratul kaafiruun buu ku akhrin jiray ragcada labaadna suuratul ikhlaas oo qul huwallahu ahad ayuu nabiga ku akhrin jiray salawaatu rabbi salaam qiraa'ada iyo wuxuu nabiga salaadaha ku akhrin jiray salaada waajibka iyo salaada sunnadani qofka muslimka waa inuu barto si uu ugu dabadaysado nabiga salawaatu rabbi salaam صلاة الصبح عاد بو النبي وديرين جري صلوات رب والسلام عليه ركعة كوات تقريبا كدوات بقول آيات بو كو آخرين جري النبي صلوات رب والسلام عليه كدوات بقول آيات والنبي كو آخرين جري عليه الصلاة والسلام إلا أصغى النبي أقول طلق علي إنه قراءة ديريو أيو حود دريمي جري إن ولتو كانيو قف حاويان دروفيسا أما المير أو أويو النبي مقلي جري عليه الصلاة والسلام صلاة أصو كتلق على إنه ديريو سو جابين جري يعني نحريست النبي إنه مدي سو نحريست جري عليه الصلاة والسلام هداد مال انت هذا كفر فرط خيرك أو صلاة الصبح آتكتو أو لبدا ركعدودنا آتكتو طاب يومك والله فرحت بمال انت هذا كوغو دمان maalintaada farxad bay kuugu dhammaan lamid ma aha maalin aad waqtigaaga sidaa ku qaadatay iyo maalin aadan tukaninba salaadii subaxba kala fog oo kala dheer waa in marka diiwaankaaga uu ku jiro dhaqankaagana uu ka mid yahay inaad tukato salaadii subax waqtigii loogu talagalay haddaad rag tahayna inaad masjidka ku dhow aad ku tukato waayo jamaacada in masjid lagu tukadaayay واجب على الرجال وواجب بيكوتها الرجال إلهي سبحانه وتعالى بكو واجبيي طيب استفادة ذا مركا مال انت هذا مركا تسيداكو قادته او صبحي هوري هرده ذا مركا تككعضو آد قيام الليل كي تكتو ولو لبرك عضد بهكون نقطي او آذان كمركو دعو حوغا ير آد لنا عميدك اجيفتو oo cidii kula nooleed ama ehelkaagii ahaa ama dad kale ahaa aadaanka aqinki markuu soo dhow yahay kale aadaanki markuu soo dhow yahay kale waxa weeyaan lagu kiciyo oo labadii ragcadood oo ka horreeyay salaada subax aadaanki aqinki inta u dhaxaysa tukato oo aayar markaasayto adigoo waxa weeyaan tandiimsan oo diyaarsan degtood masjidkii aado oo jamaaca ku soo tukato salaada subax markaad ka baxdo ama masjid ku tuko ama dumar ahaa oo gurigaaga ku tukay salaada subax markaad ka baxdo tilaabada koowaad ee la sameeyo waxa weeyaan in la akhriyo adkaartii loogu talagalay salaada subax dadka qaar kood meeshaas khata aba uga jiro inay fahmaan waa muhiim waa laga maarmaan yuusan maalintaada mugdi aysan ka noqon صلاة الصبح مركي لغا بخو دad waxaad arkaysaa musxafka quraanka hore ka qabsanayo oo quraan akhrinayo oo qiraa'atu alquraan bilaabay taasi sax ma adkaaru sabaax baa lagu hormaraa adkaarta subax la akhristo waa muqaddam iyada horeyso oo qiraa'atu alquraan iyada ka horeyso waxaan kaloo dadka badana aysan ku baraarugsaneyn inaad fahamtaan muhiim ay tahay صلاة الصبح مركي لغا بخو لا سلامه نقصدو dadka badana waxay ku dadaalaan inay hurdo hor uga laabtaan wallahi waxa ku dhaaftay dheef waqti fadiila oo baraka badan oo risqigi uu soo daadago oo nicmo badan ay ku sugan tahay ayaa ku dhaaftay iyaaka wa iyaak salaada markii laga baxo inaad hore ka seexato ma rabtaa inaad seexato sug intay qorraxda ka soo baxayso سلف كين رضوان الله عليهم أجمعين أو الصحابة ugu horeeyaan ma aysan aqoonin mana aysan garanaynin salaada subax markii laga baxo in hore hurdo looga laabto ma aysan garanin
waqtigaas waqtul fadiila wey haddaad rabto inaad hurdo ku laabato ku laabo qadra rumxin markay qoraxda soo baxdo yacni qoraxda markay xoogaa soo kor noqoto hurdo ku laabo haddii aad in kaana laabudda inaad hurdo ku laabata aad haddiiba lagama maarmaan ay kuu tahay inaad hurdo ku laabato qoraxda kor markay noqoto oo ay soo kor noqotay hurdo markaa ku laabo saxaabada ridwaanullaahi calayhim aad bay u necbanaayeen mana aysan aqoonin salaada subax markii laga baxo in horey hurdo looga laabto dad fara badan jamaacadiiba sugi laayihiinba assalaamu calaykum markii la dhaho durbadiiba sariirta markaasaa bakti dhintay camal waxaa laga yaabaa duhur oo laga baxay ama duhurka oo aadaankii dhacaya waqti xaadirka inuu soo kaco caybun calayk wallahi waa nasiib xumo weeye fadiilo fara badan iyo waqti fara badan iyo ajar fara badan ood kasban lahayd oo maalinta risqigeedii ku saabsan oo barakadeedii ku saabsan ayaad iska dayacday idan marka salaada subax markaad ka baxdo tilaabada koowaad ood samaynaysa waa inay noqoto saan kutubka ku arki doonno in sha allahu tabaaraka wa tacaala inaad adkaartii aad akhrisato adkaartii aladkaar almawruuda bacda alfariida waa adkaarta soo aroortay in la akhristo salaadaha waajibka markii la tukada ka gadaale ayib adkaartaas markaad akhrisato waxaad isku dayaysaa ood ku xijinaysaa inaad qur'aankii akhriso waa sidaas hadyigii iyo dhaqan uu ahaa saxaabadii nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh dhaqan waxaa u ahayd in salaada subax markay ka baxaan ay adkaartii akhriyaan in ay qur'aankii qeyb ka mida ay akhriyaan yacni fiirsa marka walaal ilaah baan kugu dhaarshay maxaad waktigaaga ku bilaabatay hurdaad ka soo kacday hurdadii markaad ka soo kacday adkaartaadii akhrisatay alistayqaadu min annawm ducada la akhristo hurdada markaad ka soo kacday waxaad ku iftitaaxday salaadii xuskii ilaahi subxaanahu wa tacaala qiraa'at lqur'aan idan maalintaada maxaad ku bilaabatay alittikaalu cala allahi tabaaraka wa tacaala inaad ilaahi subxaanahu wa tacaala tala saarato inaad rabbi tabaaraka wa tacaala xaggiisa u cararto inaad qur'aanka ilaahi subxaanahu wa tacaala akhrisato yacni meel waxaad waagaaga markuu kuu barye aad ka bilaabatay khayr iyo bashbash iyo barwaaqaad ku bilaabatay haddii iftitaaxaaga uu sidaas noqdo maalintii inta kale waa kuu damaan khalaas wax kalood u baahan tahay malaa marka inta kaleni ta horey raacaysaa laakiin tii horeba hadday gelab kaa tahay oo waaga markuu baryayay baad iska khuurinaysa qof lugtiisa kor u taagan tahay aad ahayd oo wax qur'aana aada akhrin oo salaadii aadan tukanin oo labadii ragcadood salaada subax ka horreysa aada tukan oo wax adkaaroo aad akhrisata aysan jirin oo aad qof iska hurday oo iska khuurinaya aad ahayd idan maalintaada maxay kugu bilaabatay mugdi ay kugu bilaabatay qaybta dambena maxay ku noqonay marka mugdi unbay ku noqonaysaa ha ka fikir maalintaada qaybteeda hore ka fikir si qaybta dambe ay kugu wanaagsanaato ood xasillooni aad u dareento haddii marka maalintaada qaybta koowaadba ay mugdi tahay lagama yaabo qaybta dambe inay iftiin ku noqoto qof walbana waa siduu asaga jadwalkiisa ka dhigto qof walba waa siduu asaga jadwalkiisii wixii dhaqan ahaan uu ka dhigto ayib wuxuu noo tilmaami doonaa sheekh oon kutubka ku dhex arki doonaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala horta hurdada markaad ka soo kacdo kow inaad u qumto oo aad istaagto iskuna diyaariso arrimahan dhoorka ah ee soo socdo dhowr arrimooduu tirin doonaa kow markaad hurdada ka soo kacdo horta sidaa u soo kacdo akhriso ducadii alistayqaadu min annawm ducadii la akhrisanayey hurdada markii laga soo kaco waad wada garanaysaan kulligiin oo waawnu wada garanaynaa laakiin caqabadana haysata waxay tahay falaa nacmal saas maan oo intaanan hadda meesha fadhisa hadda isweydiino oon idinku dhaho ducadee la akhristaa hurdada markii laga soo kaco sheeg mid kastoo annaga naga mida wuxuu leeyahay alxamdu lilahi aladii axyaana bacda ma amaatana wa ilayhi nushuur saas maan waan naqaanaa waan garanaynaa laakiin falaa nacmal kuma camal falayno caqabadda marka meesha naga haysato waa meesha wey camal la-aanta wey kow marka hurdada markaad ka soo kacdo horta wuxuu leeyahay ilaahi subxaana wa tacaala xus
oo ducadii la akhrisanaya akhriso. labo soo kac oo waxaad soo gashaa musqushii, ilkahaaga nadiifi oo ilkahaaga dhaq, carabkaagana dhaq. meeshaas faa'iidaan ku daraynaa, kutubka inooguma qorno, kutubka waa un soo khulaasaynaynaa. hadda sharaxiisa duruusaadka ka dambaan ka dhigan doonaa. ilkaha markii la cadeeyanayo dad fara badan waxbaa ka qaldan. cadayga dad fara badan waxbaa ka qaldan. su-aal baan idin weydiinaya, hadda inteenana meesha joogto ciddii garanaysaa iiga jawaabto. ta koowaad, su-aasha koowaad waxay tahay, intee la cadayaa? haye baaraka allahu fiik. meelaha la cadayo waa 3 meelood wey. koo waa ilkihii, saas maan. laba waa carabka, 3 waa ciridka. 3dana nabiga wuu na baray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. laakiin dad fara badan oo annaga inaga mida waxaa laga yaabaa meelaha la cadaya inay ilkaha bas u yaqaanaan. saas maan, ilka bas lama cadayo, bal ilkaha waaba fudud yihiin haddii carabka loo fiiriyo. carabka ka wasaq badan. saas maan, carabka ka wasaq badan. xadiidkii abi muusa alashcari muxuu dhahay? nabigaan arkay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh asagoo cadayanayo carabkiisa. wa huwa yaquul, muxuu nabiga dhahayay? siiqadaas ku soo arooriyey. waxaa kaloo soo aroortay asagoo dhahayaan arkuu dhah. carabka markaad cadayga saarto saas ugu xoqaysid, qofka xooga buu dhahaa sooma, tii buu tilmaamaya marka. idan carabka waa la cadayaa, ilkahana waa la cadayaa, ciridkana waa la cadayaa. waa 3daa arrimood, 3da shay oo la cadayo. marka ilkahaad cadeeyaysaayuu dhahay, salaada subax markii laga soo kaco ilkaha in la cadaysto waa waajib, sunna mu'akada xataa maa. sababtu waxay tahay caawo dhanuu qofkii khuurinayu hurdayey. markaad hurudo saan ogsoonnahay oo uu afkaagii isku dhegan yahayne huuro badan baa imaanayso. ma lamid baa marka kale? maya lamid ma. idan kullamaa marka carabkaaga, ilkahaagii iyo afkaagii uu isbedelo, waajib bay noqonaysaa xoqista iyo dhaqidda la dhaqayo ilkihii, waajib bay noqonaysaa. idan marka hurdada markaad ka soo kacdo ilkaha inaad cadayataay waa waajib. tilaabada labaad markaad ilkaha sidaas u cadayato waxaad samaynaysaa horta weysayso. qofkaan la hadlayno ama kutubka uu sheekha la hadlayo waa dad waktiga loogu talagala seexdo, waktiga loogu talagalana soo kaca. ee qof 3dii habeennimo seexday oo 3dii galabnimo soo kacoyo miyuu khuseeyaa? kan waaba qof dhintay. man maata faata sha'nu. qof dhintay arrinkiisu waa tagay. qof dhintay arrinkiisu waa uu tagay. saas mo. dad loogu talagalay waktigii hurdada hurday, soona kacay waktigii loogu talagalay in hurdada laga soo kaco. dadka lala hadlayo waa dadka iyaga ah wey. ayib, weysayso. say u weyse qaadanayaana waa barashay u baahantay. kutubta fiqiga lagu bartaa sooma. iska weysayso maaha, wejiga iska dhaq iyo ma aha. falaa budda bilcilmi biayi umuurin kan. cibaadada sideedaba waxay u baahan tahay cilmi, ajar fara badan haddii aad ka rabto. weyse qaadka aadaab iyo akhlaaq iyo ariiq iyo qaab loo maruu leeyahay, barashay u baahan tahay sooma. ayib, weysayso kadibni tuko salaatuleyl, walow 2 ragcadood ba ha noqoto. 2 xataa ku dadaal aadaanka salaada subax hortiisa inaad 30 daqiiqa soo kacda bis. 30 maxay kaa dhibaysaa? waa aadaanka intuusan dhicin 30 daqiiqa ka hor. waadna isku diyaarin kartaa, 2 ragcadoodna waad ku tukan kartaa. waxaana lagugu qorayaa
dadka ilaahay subxaanahu watacaala habeenkaa xusay waadhaakiriina allaha kathiira waadhaakiraat dadka allah subxaanahu watacaala xuso rag iyo dumarba iskugu jiro ayaa lagugu qoraya natiijadu maxay noqon marka acadda allahu lahum makfiratan wa ajran cadiima jannaad helaysaa acadda allahu lahum makfira allah dadkaas habeenkii xuso wuxuu u diyaariyey dembi dhaaf goormee loo dembi dhaafaya fii firaaqi dunyaahum adduunyada markay ka tagayaan iyagoo loo dembi dhaafay adduunyada ka tagayaan wa ajran cadiiman ajar weyn alajru alcadiimu maxaa loo jeedaa wa aljanna waa jannada wey sidaasay mufasiriinta ku fasiraan idan marka xataa salaada subax horteeda 30 daqiiqo soo kac oo 2 ragcadood xataa ilaahay subxaanahu watacaala ku xus kadib isku diyaari inaad tukato 2 ragcadood ee salaada subax ka horreysay kadib salaadii subax jamaaco haleelsii haddii aad tahay qof rag ah haddaad dumar tahayna waqtigeeda gurigaaga ku tuko falafdal laka an tusallii fii baytik waxaa kuu ajar badan kuuna khayr badan inaad gurigaaga ku tukato haddaad dumar tahay weliba way kala khayr badan tahay tukashada guriga lagu tukanayo barandada hadday gabadha ku tukato iyo qolka jiifka hadday ku tukataay waxaa u khayr badan qolka jiifka inay ku tukataa u khayr badan una ajar badan salaada subax markaad ka baxdo adkaartii akhriso adkaarta markaad akhrisato kadib qur'aan akhriso walow xisib haddaadan si fiican xataa qur'aanka u aqoonin walow safxa hal safxa xataa akhri soo warcad maaha yani waa aadaab nagula tarbiyeynayo sidii maalinteenna ay inoogu noqon lahayd maalin aanan murugo dareemin xasillooni aan dareenno aanan farxad waxaa weeyaan ku jirno murugadii waxaa weeyaan naga dheeraato annagii dhan habbi aan iska naanay quudkeenna uu inoogu barakoobayo owlaadeenna ay inoogu wanaagsanaanayaan annagii aan ku wanaagsanaanayno waa haddii dhaqankaaga waaga markuu kuu baryo aad sidaa ku bilaabato waxaa kala tabac bay u yihiin way soo raacayaan qur-aanka markaad akhrisata ka gadaale ood ilaahay subxaanahu watacaala xusta ka gadaale oo qoraxdii ay soo baxda ka gadaale qoraxda markay soo baxda ka gadaale waxyaabaha aad samaynaysid iyo xataa qaabka aad u qaadanaysid quraacda kulli iyadoo rakisanu kutubka inoogu keeni doona aanu ku arki doonno insha allahu tacaala baraqadii markii la gaaro salaatu duxada inuu qofka laazimo waan ku arki doonna cuntada saad u cunaysid ilin maalintaada waxaa ka mida waqti kusoo marayo waqti aad cuntaa kusoo marayso waqti aad wax cabaysaa kusoo marayso waad ogsoon tihiin alaklu alطacaamu washaraabu aadaab bay iyagana leeyihiin aadaab baa loo maraa oo ay iyaguna leeyihiin mukhaaga waa inuu shaqeeyo noloshu ma aha wallaahi noloshu ma aha ya subxaana allah yani marxaladda maanta aan ku jirno iyo macaanka diinteenna siday u kala fog yihiinaan aada ula yaabanna hurdada markii subaxi laga soo kaco hadduuba qofku hurdo maanta shayga koowaad uu gacanta ku dhiga maanta ma garanaysaa yaa ka jawaabi kara hurdada markuu sidaas uga soo kaco qofka shayga koowaad uu gacanta ku dhiga yaa garan kara baaraka allahu fiik waa mobilka wey waa mobilka wey يعني وحقيقة وواقع جرتا واي ساسمان وكان مانتا كلا ديريو كلا فوقيو موبيلكا لما قفو اسقبتي كلا مشغوليي فبل مال كنو لا هوي ابو iyo ubadkoodii kala mashquuliyay laba qof hal meel ku wada shaqeynaysay kala mashquuliyay laba qof hal meel wax ku wada baranaysay kala mashquuliyay sheekhi ardaygiisi kala gooyay waxaad arkaysaa macallin qof qur'aan baraya kalaamu rabbil caalamiin qur'aankii ka dhageysanaya oo waxa weeyaan baraya wuxuu ku sii jiraa garaacisana uu ku jiraa ya subxaan allah يعني آفدان كسو وجهدي oo jirkaagu la qabsaday miyaysan la dagaalan u baahnayn maskaxda ogsoonow marka waa meeshii lagu xiro
والبنا درجات باللي وحن لحكمين كريم مجرد بوحدة استعمالي زازما كم من الناس أنا استعمالي ودني آباء أنا كرهين كان علمي بدن أذيك مانت أين دعي كرتيني أذيك كاد يريه وأذيك حتى أتكوينت إذا مرك قفل وماشوا أصاق إصبي قوي مركو هردو قفي كسوك عماشي للربي ورمحان مال انتي ذا كوة جهة سيدي مال انتي ذا إيقو بركوذا سيدي أمد كيجي إيقو بركوبان سيدي أرزاق دي إيقو حلالو ذا ورسيدو ما أنت إلهي إيقرى لنقن كرا شالي وابي صور دافتي ما أنت سيدو إلهي إيقرى لنقن كرا إن ما شاس للربي قفك إنو سيدا أفكرو يوم أنت نلاشي إذلو حيكو سوكو بناتين لقو جرو فللعجب ضدك استعماله حقيقة ضد وناكسن إذا وناكسنين انتبوا إسكيقو جرو لكن نصيحة لكل من يستخدم قفوا البوموبيل كاهايستو وآلذها ما أنت اللي وحيري استعمالاي وحان نقول نصيحين إياه إنه وقت جيسا أكوضو يعني وقت جاء استعماليسو إناد أكوبتو إني سن كامشغولين أرمها كري والله هداد أركتو إني أرمها كلا كامشغولين يان خسارو كوكوسو وذاي إسكدا خسارو كوكوسو وذاي إسكدا وحان كلون هو نصيحين إياه ولا لها استعماله صورة ذا مصورك وحد أركيسا بأي تلابة لقاضية يصورها لسكسو قاضية هدوى تلابة والبيا مركو الدعي سني يا شيخ سليمان الرحيلي حفظه الله يا سيد دقة أتلمامي بالله عليك سلفني أصود دعي سني يسان داي يصوري اسكسو قاضية هل يقبل هذا الدعاء تلو دعاء ذا ملقاه بليا حجكي بو جوغا ضواف بو كجرا صوروا اسكا قاضية آلذي يالا صور نحدقيا مشغول كميش وما انت قارب الأك وفيري أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوافقنا بما يحبه ويرضى بلن يرد الدعاء دا أهني إيقنا وحانكو أقول نصيحينيا ولبا خاصة عامضو إذ النسية يوغارتو خير كمركات قد بيني ست وآد قفك خير أشيغي ست خير كأشيغي دي سوحو أباهي هي قال الله قال رسوله قال الصحابة انت صور نقوم في النور ليال انت صور نقوم في الانت قفك خير مركات أشيغي ست خير ودن كتبك كسوغن يا إزامو خير ودن سنة النبي جنة كسوغن تا إزامو خير صحابة إنه نوصم ينصمان خير كمركي آدتك أقد بيني سوالال أشيك الدلذي إذا الرأسي رنبان ما أنت كالا هاد ليا مثلا رنتا أن ما أنت كالا هاد ليا أو أنكو شيء إغفلا إنه الله ده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فرمحاك الله كلها إنه النبي قد ده صلوات ربي وسلام عليه إن الرجل لا يتحرى بالصدق حتى يكتب عند الله صديقا آيات داس قرآنك إي حديثك أو رنت كوت المامي أو الله إي الرسول كيس أي شيئين سوكو ما فينه maxaa marka naftaada u cadibay oo aad wadooyin kale u soo marmaray maxaa isku culays saare ilaahi culays kuma saarine maxaad khayrkaad adiga gudbinaysid maxaad ugu daraysaa xoogaa been waxaan u jeedaa dhalinyarta qaarkood oo ahlu khayr ah oo runtii dadka inay khayr gaarsiiyaan in fara badan jecel yaa waxay sameynayaan khayrka say u gudbinayaanay محاضرة أهان أصدو بيان يعني فيلم دعي أو كله دعيست فيلم كان أو دعي قف مروه سنة وكله صوص عضو أديك على الربع إن رمت إيه خير كله وشيء كان دعوانا يا الربع وحلا صدو بيان مرك كل بير أو فيديو أهانا أو واقع أهان كو ترجمة يوم إن وحاني أي وحاويان في عينين
haddaba marka kilibkan iyo qofkan ismurugeynayo ficilkan ma dhab ahaan u sameynaya mase waa majaajilo miyaysan been ahayn marka ficil ahaan miyaysan been ahayn maxaa kugu xambaaraya adiga maxaa kugu koos garaynaya kugu filan khayrka markaa dadka u sheegaysid allah baa sidaan yiri rasuulkii baa sidaan yiri saxaabadii baa sidaan dhahayn culummadaynnii baa sidaan dhahayn u sheegmadaas walal kugu filan laakiin aad murugo issaarto oo aad waxaa weeyaan majaajilo dhacayso oo aad og tahay inay been tahay adigaba ogba iska daa dadkii daawanaya intaan la gaarin adiga waxaad og tahay inay been tahaad og tahay maxaad naftaada marka majaajilo aanan jirin ugu cakabaynaysaa oo aad ugu cuslaynaysaa khayrka iyadoo ay dadku ay wada jecel yihiin inay sheegaan oo ay dadkii gaarsiiyaan hase yeeshee sifo iyo aadaab iyo qaab loo maruu leey qaabkiisa inaad u marto wax uga qurux badan marka ma jirto yacni dadka waa in loo khayr miiro dadka waa in loo khayr sheego xaqiiqada jirta dadka waa in loo sheego laakiin waa inaad u soo marto sifo iyo qaab allah subxaanahu wa tacaala uu kaaga raaliyahay muhiimaddu ma aha bulsho hel wallahi inaysan ahayn bulsho iyo dad hel ma aha haddii ulajeedkaaga uu taas yahay waa gooni kale laakiin hal qof oo wax aad ka dhaadhacsiisaayey kaaga khayr badan kun qof oon ku fahmin kun qof oo waxaad sheegaysid ba aanan ka dhaadhicin waxaa kaaga khayr badan hal qof oo waxaad sheegaysid kaaga khayr badan marka maalintaada walaal ha iska gubin hana ku bilaabanin wuxuusan ilaahi subxaanahu wa tacaala kaaga raalli ahayn ayib intaa ka gadaale wuxuu qodobka afaraad ka dhigi doonaa markii qur'aankaaga aad soo akhrisato oo aad waxaa weeyaan adkaartaadii akhrisato qodobka afaraad inaad xoogaa samaysato wax loo yaqaano tamaariin qofka mu'minka ahi tadriib iyo tamaariin waxaa ugu filan salaada allah subxaanahu wa tacaala uu marna u rukuucayo marna u sujuudayo ilaahay ateecistiisa iyadaaba tamriin inoogu filan hase yeeshee shareecada ilaahi subxaanahu wa tacaala ma aysan diidin in qofka jismigiisa uu dhiso oo waxaa weeyaan wakhtigiisa uu uga faa'iidaysto siduu ilaahi subxaanahu wa tacaala uu ku raaligelin lahaa almu'minu alqawiyu khayru wa axabu ila allahi min almu'min aldaciif wa fii kullin minhumaa khayr xadiidkana kama warramayo jir la dhiso dadka qaarkooda jiimka iyo murqaha iyo calooshoo la dhiso u soo daliilsado almu'minu alqawiyu khayru wa axabu ila allahi min almu'min aldaciif waa kalimatu xaqin yuraadu biha albaatil waa kelimad xaq ah laakiin lala doonayo baatil ahaan almu'minu alqawiyu khayru wa axabu ila allahi min almu'min aldaciif wuxuu xadiidka ka hadlaya waxay tahay mu'minka ilaahay taacadiisa wakhti walba u taagan iyo mu'minka ilaahay taacadiisa marmar gelab ka gasho wuxuu ka hadlaya waa kaa wey ee ma aha almu'minu alqawiyu midka sigis baaga leh ma aha midka murqaha kuusan oo dhabarka si fiican u dhisay ma aha wuxuu ka hadlaya taa ma aha yaanan nusuusta meeshii loogu talagala meelaanan ahayn la saarin barqada markii la gaaro yani waagii markaad tamaariinta sidaas aad usoo yara samaysato barqada markii la gaaro oo qoraxdii ay soo kor noqoto waktiga barqada aadaab bay iyadana leedahay aadaabtay leeda waxaa ka mid a inuu qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala barqada xuso muxuu ku xusayaa salaatu duxaa buu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xusaya bal maanta adi marka maxaad ilaahay ku xustaa xuskaaga dhanba hadduu kan yahay ka waran mobile hadduu yahay xuskaagoo idilba hadduu mobile yahay ka waran laa tudayic waqtak war waktigaaga ha dayicin war waxaan faa'iido ku lahayn waktigaaga ha dayicin walilasaf waxaa cajiib ah mobeelkaas asaga ahi inuu ku mashquulayo waxay yihiinba aadan ogeynba xataa cilmiga markaad qaadanaysa miyuusan aadaab lahayn shuruudihii iyo aadaabtii uu lahaa aawaye ma ogsoon tahay inuu dhagahaaga ilaahay kuu ilaaliyey indhahaagana inuu ilaaliyey ilaahay subxaanahu wa tacaala waa hilib indhaha dhagahaagaasna waad u jeedaa
allah subxaanahu wa tacaala maadaama indhahaaga uu adiga ku siiyey indhahaagaas iyo dhagahaagaas miyuusan amrin inaad xumiyo idilka ilaaliso xumi inaadan ku dhagaysan xumina aadan indhahaaga aada ku arag miyuusan ilaahi subxaanahu wa tacaala taa amrin jawaabtu waa cadda ina asamca walbasara walfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula kama hadlayo indhahoo fuxshi lagu sameeyey inay xun tahay wax fuxshiya lagu daawado inay xun tahay taa kulligeen waan wada garanayna dhagahoo wax xun oo qaab daran iyo muusig iyo qurun iyo balaayo lagu dhagaystanay wax xun inay tahay kulligeen waan wada garanayna taa waan fahamsanna ee waxaan ka hadlaya waa waxaan la fahamsanayn la rabo cilmi in loo qaato waxaan ka hadlaya waxay tahay indhahaaga muxaadaraadka ay daawanayaan oo dadka ilaahi subxaanahu wa tacaala ka furtay oo magaca diimeed dadka ugu soo gambanayo oo ummadda wixii ilaahi subxaanahu wa tacaala xaaraam uu ka dhigay xalaal uga dhigayo wuxuu ilaahi subxaanahu wa tacaala xalaal ka dhigayna xaaraam uga dhigayo dadkaas inaad indhahaaga ku daawato dhagahaagana aad ku maqasho wallaahi way ka adag tahay faaxisho aad indhahaaga ku daawato ama aad dhagahaaga ku maqasho qof maanta diinta ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu ilaahi subxaanahu wa tacaala amray waa wuxuu ilaahi subxaanahu wa tacaala amray oo iska cado waadix ah ku dhahaayo waa xaaraam ilaahayna wuu xalaaliyey ama ku dhahaayo waa xalaal ilaahayna wuu xaaraamiyey sharta uu qofkaas wado waa ka ballaaran tahay sharta qofka macsida keligiis waxaa weeyaan dhex dabaalanay waayo tan waa caam intaasoo kun oo qof yuu wuxuu gaarsiinayaa in heesuhu ay bannaan yihiin in qur'aanka bas dadka ku filan yahay sunnada nabillaahi maxamed aysan dadkii waxaa weeyaan u baahnayn oo ay ka kaaftoon yihiin in ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu si cad u caddeeyey wax uu allah subxaanahu wa tacaala si cad u caddeeyey inuu adiga ku xalaalayo allahna uu xarimay ama inuu kaa xarimo allahna uu xalaaliyo kuwa noocaasi ahi oo jirjiroolayaasha ah oo ummadda iskaga dhigay inay u khayr miirayaan dhammaanna ummadda ay og yihiin inay halaag ku wadaan ilaan dadka iyagaas khayrkii waxaa weeyaan ku adagay badankoodii intuu ilaahay u naxariista mooyaane shartana waxaa weeyaan u dhaga fudude kuwa xataa dhagaysanaya inuu qaldaya waa ogyihiin laakiin waa iskaga kifaaxaya asagase wuxuu u haystaa inuu bulsho iyo jamaaca sidaa ku haysto war waad lunsan tahay dadkan diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala waa u caddeeyey kamana dhaadhacsiin kartid shay heesaa xalaal ah kamana dhaadhacsiin kartid murtadaan la dili karin kamana dhaadhacsiin kartid cadaabulqabri baan jirin kamana dhaadhacsiin kartid ribadu way bannaan tahay kamana dhaadhacsiin kartid waa lisqarxin karaa iyo wax la mid ah kulligood way wada ogyihiin dadka waayo maxaa inta ugu jiro caqli iyo garaad cilmina ilaahay subxaanahu wa tacaala badankooda waa siiyey dadku sakhraaniin ma aha ma waalna ma murugeysna ee waxaa weeyaan keliya waxa ay samaynayaan shaygan ay samaynayaan wakhtigays ku luminayaan iska dhagaysanaya war xataa ha dhagaysanaynan ku dhihi laha waabaad og tahayba inuu waxaa weeyaan wuxuu ku hadlayo qurun ay tahay oo ay xumi tahay waa og tahay inaysan hees bannaanin oo ilaahay xarimay waad og tahay khamre inay xaaraam tahay ilaahay xarimay waad og tahay zinadu inay xaaraam tahay oo ilaahay xarimay waad og tahay ribadu inaysan bannaanin oo ilaahay xarimay waad og tahay waxaa weeyaan heesuhu wax bannaan inaysan ahayn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xarimay hase yeeshee dhagaysiga aad dhagaysanaysa faa'iido kugu sugan ma laha waabaad og tahayba cilmi aad uga suganta intaasoo kunoo jeer yaa waxaa weeyaan dhagahaagii ay ku dhaceen culummadu in badan ay ka hadleen nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh hore inoogu caddeeyey kugu filan heestu ma xaaraan baa mase waa xalaal hal xadiiduu nabiga ku sheegaa kugu filan xadiidku ma saxiixba mase saxiix maaha bes saxiix weeye xadiidku halka xadiidka ugu filan waata nabiga uu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh سيأتي على الناس زمان يستحلون الحرى والحرير والمعازف ومبدأ وحاكو إيمان دون تم آخر الزمان وقتي أي حلالي صندونان قارئية كمدة أي حلالي صندونان زندة يستحلون الحرى زندة أي حلالي صندونان ما أنت ما يخل زندة وإسكا عادي وحاويا دادك وغبغ نبي قهر وشيء واكاب الكور صلوات رب السلام والحريرة حريرتنا أي وحاوين حلالي صندونا حريرته رقب وحرام كيه والمعازف معازف ومحي أي الغنى هيسا ما أنت ما هينا ما هينا والله هي كوا مركدتك أقول باقي إني هيسها بنايهين
dhageysiga xataa la dhageysanayo kuwa dhageysanayo way og yihiin kan wuxuu ku baaqayo wax qaldan inuu yahay laakiin waqtigiya waqti lumiskii adduunkiis ka noqday waxaan waxa kale Allah ma jirto oo liska dhageysanaya laakiin qurunimadiisa iyo wuxuu ku baaqayo nin weyn oo sumcad lahu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka dhigay waxa uu dadkii la soo horfadhiisanayo waa shay iska muuqato iska waadix oo cad weey miyasan saasay hadda markii yaa juhala oo adiga dagi kartaa mise waxaad u maleynaysaa dadkii haday aaladahan isticmaalkooda ay ku bateen in waxa weeyaan dhageysiga ay ku dhageysanayaan inay raali kaaga yihiin haddaad saas u maleyso wallahi waad qaldanta ee umadiya u badatay meeshan iyo dhageysiga waxa weeyaan dadkii waqti lumis uu ka noqday mooyaane bal waa kaasay waxa weeyaan umadii hadad maanta waan baara aad dhaaday xaqiiqada waa la ogsoon yahay sidoo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax ugu cadeeyana dadku u baahan yihiin طيب maalintaada yeesa ka khasaarin waliba awaailkeeda iyo bilowgeeda hore yeesan ka khasaarin arrimaha marka uu sheekha tilmaami doono iyo mawqiciyada uu tilmaami doono iyo qaybaha uu noo tilmaami doono waa qaybaha anaga nafcino leh hadii jadwalkeena iyo timekeena aan ku waxa weeye bees gareenno ku dhisnani waxaan hubaa inaysan waxba inaga halaabayn fi dunyana wa ukhrana adduunyadeena iyo aakhiradeenaba dhamaanna waxaan ku dadaali doonaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala inta aan risaalada ku guda jirno maadaama risaalo yar iska tahay inta aan ku guda jirno waxaynu ku dadaali doonaa hadduu allah wadala ka raali noqdo saacad walba ee maalinta kamida waxa uu nabiga sameyn jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh maxaa yeelay asaga inagu filan nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam asaga waxay tahay axadka ay waajib ka tahay inaan raacno axadka ay waajib ka tahay inaan raacno allah subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanayaa inuu xaq inagu sugo maadaama ka muqaddima ahaan ay maanta iska heedo hordhac kutubku inoo ahaa sidaas daraadeeda waqtigii loogu talagalay xoga aan u dhaafsiiyay insha Allah tabaaraka wa ta'ala waqtigii sida horeyba loo iclaamiyay iclaamka markasku idinku qornaa insha Allah tabaaraka wa ta'ala waa iska 35 daqiiqo duruustana sidii duruusaadkii hore inoogu socon jireen kutubkan inoogu socon doona oo aadaabtii qaabkini waynu wada garan doonaa xoogana waxaan saari doonaa waa laqbadaas inuu qofka macnayn karo marka biidnillaahi tabaaraka wa ta'ala dadaalisteedii iyo juhdigeeda idinkaan igala raba hada wallahu a'lam wa ahkam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam